qaybta labaad wararkii waxaa dhinaca diblomaasiyadda caalamka dhan oo todobadii bishii aan dhaho Maarso waa 2022 waa markale wararkii waxaa dhinaca diblomaasiyadda caalamka qaybta labaad warfadhi media sidoo kale warfadhi media group qaybta warfadhi TV wararka kale iyo wararka ugu dambeeya wararka si dameeyo ee ku maqli doontaan ee dawladda dalka Mareykanka ayaa qarka u saaran in ay ka mid noqoto dalalka mamnuucaya ayaa la shidaalka dalka Ruushka sidaas waxaa sheegay maamulka aqalka cad ee dalka Mareykanka in ay arintaasi ay ka xajoonayaan wadamada reer galbeedka arintan ayaa la sheegay in taa bedelkeedu ay noqon doonto qorshe ballaaran oo dawladda dalka Mareykanka ay ka fikirto in aysan hadaba yaraanin shidaalka dalka Mareykanka iyadoo ay dawladdu sheegtay inay isticmaalayso hab aan qoysaska Mareykanka u dareemin inay kor ugu kacday shidaalku iyo hab loo ciqaabo dalka Russia ay ku tilmaameen in go'aamada dhinaca dagaalka ay sameynayaan ay tahay kuwa aad u sidsanaya Mr. Zelensky ayaa isaguna dalbaday aag horle oo cusub oo isaguna laga furo dhinaca waxa uu ugu yeeray aag laga mamnuucayo diyaaradaha dagaalka dalkaasi Russia isla markaana ay aan loo ogolaanin in ciidamadaas ay sii wadaan dhanka kale waxay sheegeen in la sii adkeeyo oo dalbaday dalka reer galbeedka inay laba jibaaraan in wuxuu ugu yeeray cunaqabataynta dalkaasi la saarayo oo uu sheegay in gaar loo bartilmaameedsado waxaa iyo warshadaha dhinaca hubka sameeya ee dalka Russia gabi ahaanba laga dhigo hubkooda iyo agabkooda kuwo duma oo la cadaadis aad xoogan la saaro arintan ayaa imaanaysa iyadoo madaxweynahaasi mar walba uu fikradaha uu keenayo uu doonayo inuu ku adkeeyo dalalka wuxuu yiri hadii aad doonaysan in aad badbaad wuxuu yiri marka horeysa bil aadan ayaanu nahay bil aadan markay dhimanayaan ama la arko bil aadan leanaya waxa ka saaran ayuu yiri xil bil aadanka kale in ay badbaadiyaan annaga marka bil aadan la baabiinaya ayaanu nahay iyo sheegay isagoo ka dalbaday dalalka inay markaasi ay sameeyaan wuxuu ugu yeeray wixii karankooda ku badbaadi karaan dhanka kale magaalada caasimadda haawanaysa ee go'doonsan ee Kiev ayaa waxaa laga maqlayaa sawaxanka heesta qaranka ee dalkaasi national anthem iyadoo la sheegay in laga wado in dadkaasi weyn loogu baraarujiyo golaha baarlamaanka ayaa waxay tageen xaruntooda kadibna intay aqalka hoosta ka xidheen ayaa waxay qaadeen heesta qaranka waxaana laga daarayay markaas codbaahayaasha inta badan digniinta bixiya iyadoo magaalada oo dhan laga maqlay heesta qaranka ee dalkaasi ama heesta calanka ee dalkaasi waxaana la sheegay in dadka la doonayo dhiig ku kaco si markaasi loo arko dad badan oo soo baxaya dagaalka isla markaana ka qayb qaadanaya gulgooyin heeso iyo waliba barnaamijyo ay wadaan qaar kamid ah wariyaasha dalkaasi oo iyagu baraha bulshada si weyn ugu hilba dagaalamaya waxayna doonayaan in aad loola dagaalamo dalka Russia ciidankiisana loo soo baxo oo la iska dhiciyo sida hadalka loo dhigay dhanka kalena iyada oo ay wali sii socoto cadaadiska xoogan ee la saarayo dawladda dalkaasi Russia ayaa la sheegay in shirkadii ugu dambeeyay ayaguna ka guura dalkaasi uu kamid yahay American Express oo iyaduna nooca markaasi deymaha bixisa ee loo yaqaan credit card company shirkadda ayaa sheegtay inay dhameynayso dhamaan isla markaana ay joojinayso shaqooyinka ay ka waday gudaha dalkaasi Russia iyadoo ku biiraysa dalalka tirabeelka iyo shirkadaha waaweyn ee dunida ee tooteynaya dalka dhanka kale waxaa la sheegay in dawladda dalka Russia ay go'aansatay in xarun kasta oo nuclear ay gacanta ku dhigto iyadoo warkii ugu dambeeyay sabrashiya ka imaanaya sheegeen inay demisay qaybta internetka iyo telefoonada shirkadaasi weyn si ay u maamusho isla markaana aysan u yeelin wax lagu yeeray galaangal ay ku yeelan karaan xubnaha qaarkood waxay sheegtay hay'adaasi inay dawladda dalkaasi ay inta badan hadeerta ay doonayso inay gacanta ku dhigto oo ay wada maamusho dalkaas iyo gabi ahaantiisba xarumaha nuclearka ee dhinaca rayidka laga markaas amaamo magaalooyinka qaarkood ayaa la arkay iyadoo oo la sheegay in meydku wadooyinka waran yahay sidoo kale waxaa la sheegay in magaalooyinka qaarkood ay dawladdu burbur aad u xoogan u geysatay magaalada loo yaqaan Irpin ee banaanka magaalada caasimadda galbeedkeeda xigta ayaa la sheegay inay kamid tahay magaalooyinka haawanaya ciidamada dalkaasi ay ku burburiyeen qalab military kadib markii dadka qaarkood wax iska caabin ay sameeyeen magaalada ayaa hadeerta waxay u eeg tahay ayaa la yiri mid aad iyo aad u sii xumaanaysa dhanka kale madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu sheegay inuu khadka telefoonka kula xiriiray Vladimir Putin markana uu ka toogay inuu joojiyo xarumaha uu ku wada dagaalka dhinaca nuclearka sidoo xaaladdu aysan u sii darsan waxa uu sheegay in weydiistay Mr. Putin inuu joojiyo in laga wada hadlo badqabka xarumaha dhinaca nuclearka ee dalkaasi ciidamada Ruushku waa inay la shaqeeyaan dadka waxaan ka codsanaya la shaqeeyaan dadka Ukrainianka ee ayagu hubi kara xaaladda nuclearka kuwaasoo ah in aagaas laga dhigo aag ka caagan in uu gantaal ku dhaco ama ay burburaan si uusan uga kacaamin radioactive iyo barayooyin kale goorsi warisi ayaa waxa ay dawladda Russia ay beenisay in bomboonin iyo muuqaalo laga soo duubaya xarumo dhowra
oo markaasi kamid tahay xarunta nuclearka ay horey u qabsadeen ciidamada dalkaasi inay gubanayso taasoo markii dambe been soo tari weeday warkaasi ayadoo ay ku tilmaantay dowladda dalkaasi inay tahay arrin been abuur dhanka kale xarunta Chernobyl iyo goorsi wareysay nuclearka ugu weyn ay qabsadeen dowladda dalka Russia ayaa sheegtay in xarumahaas ay qabsadeen dad ay ugu yeedhay afkaarihii naasiinta dad wata kuwaasoo ka dhiganaya inay doonayaan inay mar kale Ruushka ruqeeyaan oo amnigiisa ay geliyaan halis balse aysan taas yeelaynin isla markaana ismacay Russia ayaa markii ugu horeysay warbaahinta reer galbeedka iyo warwareyntoodu waxay sheegeen in ay riday 600 oo gantaal tan iyo intii ay howlgalka ka bilowday dalkaasi 95 taasi kamid ah waxaa la sheegay inay ku dhaceen 95 ayaa gudaha dalkaasi ku dhacay Ukraine taasoo ka maqraati kacday inaysan Ukraine lahayn hanaan difaac oo gebi ahaanba gantaalaha ka qaban kara waxaa la sheegay in dhammaantood ay gantaalahaasi ku dhaceen bartilmaameedyo ay ugu talagashay dowladda dalka Russia inkastoo warbaahinta reer galbeedka iyo tan markaasi Al Jazeera labadaba ay sheegayaan in ay ku dhacday qaarkood ku dhaceen goobo rayidku ku badan yahay sida iskuulo isbitaallo iyo meelo kale aan loogu talagelin in military ahaan loo weeraro hadal isaguna uu eeg madaxweynaha horta dalka Ukraine waa nin aad ugu dagaalamaya warbaahinta wuxuu sameeyay qorshayaal dhinaca warbaahinta iyadoo la sheegay in tiimka u qaabilsan dhinaca warbaahinta ama xafiiskiisa warwareynta aysan habeen iyo maalin nasan isagu maadaama uusan nasan laftiisa wuxuu duubaa muuqaalo wacyigelin abaabul iyo sidoo kale codsiyo dunida ku socda narratifiyo ama sheekooyin oo abuuro iyo sidoo kale waxyaalo loo yaqaan dhiirigelin wilgooyin iyo waliba mararka qaarkood hadallo markii ugu horeysay qaarkood ay yaab leeyihiin inkastoo mar walba uu dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda dacayaadka iyo dalkiisa waxa iyo dhibaatooyinka uu xoog saari jiray markan wuxuu soo saaray fadl arinta fadwada ah waa markii ugu horeysay arinta diinta uu ka hadlo maadaama dadkaas dad ehlu kitaab ay yihiin waxa uu sheegay in maanta xalay ay warkii soo saaray oo ay dhamaanaysay maalinnimadii ay dhamaanaysay dabcan axad ahayd ayuu sheegay maalinta axadda in dadka kristaanka ay aaminsan yihiin inay tahay maalinta dambi dhaafka oo qofku toddobaadkii wuxuu dambi uu galay laga dhaafo sidaa daraadeed wuxuu yidhi iyadoo ay maanta caawa isniin soo gelayso ayagu markaa isniin uma xisaabiyaan gabi ahaanba habeenkaas isniinta soo gelayso Sunday night baa loo yaqaanaa ama habeenka waxa loo yaqaanaa axadda laakiin caalam islaami habeenka isniinta inagu naqaano sidaa daraadeed wuxuu yidhi iyadoo caawa ay isniin tahay waxaan rabaa in aan sheego aan dhaho caawa ay axad tahay ayuu yidhi waa isniintii dabcan oo xalay ahayd wuxuu yidhi caawa iyadoo ay axad tahay waxaan rabaa ayuu yidhi in aan sheego in ay tahay habeenka ugu dambeeya ee dambi dhaafka iyo cafiska waxa uu yiri marka la iscafiyo sidoo kalena la isku dambi dhaafo laakiin waxaan rabaa ayuu yiri inaan iraahdo boqolaalkii geeriyooday iyo kuwa kale ee dhibanayaasha ahi ma cafi doonaan iyo kumanaanka kun ee kale iyaguna qaxay waxba ma cafi doonaan ee dhibaatoonaya ayuu sheegay wuxuu yiri waxaan kale ogahay ayuu ilaahay xitaa ma cafi doono buu yiri maanta iyo berri iyo weligi xataa wuxuu yiri waxa jiri doonta ayuu yiri in la maxkamadeeyo maalinta qiyaamaha la soo taago dadka dambiyadan iyo jarimooyinka weyn geysanaya waxa uu sheegay in ay jirto dambiyo waaweyn oo dalkiisa ka dhacay kuwaas oo sheegay inay yahaayeen kuwo aan kala sooc lahayn oo gantaalo aan kala sooc lahayn loo meeldayn lagu soo daadiyay dalkiisa sidaa daraadeedna ay ku dhaceen goobo dadku ku badan yahay iyo waliba in ay sameeyeen naafayn aad u weyn oo dalkiisa gaadhay sidaas ayuu sheegay xalay maqal iyo muuqaal barta Facebook uu ku soo duubay oo markaasi uu soo dhigay Mr. Veselinski dhanka kalena iyadoo warbaahinta reer galbeedku ay maalmihii ugu dambeysay oo dhan ay ka warrabayeen inay si weyn isku caabiyeen ama wax iska caabinayso biyeen ciidamada dalkaasi Ukraine haddana waxay sheegeen hadda in waqtigu hayo isla markaana ay u adkaysan laayihiin ciidamada la kala bedbedelayo ee marba kooxdu soo galaysa cusub ee dalka Ruushka iyo sidoo kale raxanaha kala duwan ee hubka lagu garaacayo iyagoo ku tilmaamay in marba walba shixnad hub iyo artillery culus loo soo dirayo waxayna sheegeen magaalada Odessa magaalooyin ka mid hadeerta isha ku hayaan taasoo ka dhigan ay yiraahdeen in ay halis aad u weyn ku jirto dalkaasi waxay ku tilmaameen in qorshahaasi uu noqon karo qorshihii ugu ballaadhnaa meesha looga saari karo iska caabinta iyagoo ka digay in dowladda dalkaasi sida u muuqato ciidamadeedu ay u muuqdaan kuwa sii niyad jabaya iyagoo sidoo kalena dadka shacabka ee goorsii horeysay dagaalka si weyn ugu biiray oo qaarkood ku jiraan qurba joog dalka u soo noqday si ay u daafacaan ay ka niyad jabayaan ayaa la yiri markaasi hugumka culus iyo hubka aadka u ballaaran ee lagu garaacayo qaybta saddexaad wada
qaybta labaad wararkii waxaa la dhinaca diblomaasiyadda caalamka dhan todobadii bishii aan dhaho Maarso waa 2022 waa markale iyo wararkii waxaa la dhinaca diblomaasiyadda caalamka qaybta labaad warfadhi media sidoo kale warfadhi media group qaybta warfadhi TV wararka kale iyo wararka ugu dambeeya wararka si dambeeyo ee ku maqli doontaan dowladda dalka Mareykanka ayaa qarka u saaran in ay ka mid noqoto dalalka mamnuucaya ayaa la shidaalka dalka Ruushka sidaas waxaa sheegay maamulka aqalka cad ee dalka Mareykanka oo sheegay in ay arintaasi ay ka xajoonayaan wadamada reer galbeedka arintan ayaa la sheegay in beddelkeedu ay noqon doonto qorshe balaaran oo dawladda dalka Mareykanka ay ka fikirto in aysan hadaba yaraanin shidaalka dalka Mareykanka iyadoo ay dawladdu sheegtay inay isticmaalayso hab aan qoysaska Mareykanka u dareemin inay kor ugu kacday shidaalku iyo hab loo ciqaabo dalka Russia ay ku tilmaameen in go'aamada dhinaca dagaalka ee uu sameynaya ay tahay kuwa aad u sidisnaya Mr. Zelensky ayaa isaguna dalbaday aag horle oo cusub oo isaguna laga furo dhinaca waxa uu ugu yeeray aag laga mamnuucayo diyaaradaha dagaalka ee dalkaasi Russia isla markaana ay aan loo ogolaanin in ciidamadaas ay sii wadaan dhanka kale waxay sheegeen in la sii adkeeyo oo dalbaday dalka reer galbeedka inay laba jibaaraan in wuxuu ugu yeeray cunaqabataynta dalkaasi la saarayo oo uu sheegay in gaar loo bartilmaameedsado waaxaha iyo warshadaha dhinaca hubka sameeya ee dalka Russia gabi ahaanba laga dhigo hubkooda iyo agabkooda kuwa duma oo la cadaadis aad xoogan la saaro arrintan ayaa imaanaysa iyadoo madaxweynahaasi mar walba uu fikradaha uu keenayo uu doonayo inuu ku adkeeyo dalalka wuxuu yiri hadii aad doonaysaan in aad badbaad wuxuu yiri marka horeysa bilaadan ayaanu nahay bilaadanku markay dhimanayaan ama la arko bilaadan leeanaya waxa ka saaran ayuu yiri xil bilaadanka kale in ay badbaadiyaan annaga marka bilaadan la baabiiraya ayaanu nahay iyo sheegay isagoo ka dalbaday dalalka inay markaasi ay sameeyaan wuxuu ugu yeeray wixii karankooda ku badbaadi karaan dhanka kale magaalada caasimadda haawanaysa ee go'doonsan ee Kiev ayaa waxaa laga maqlayaa sawaxanka heesta qaranka ee dalkaasi National Anthem iyadoo la sheegay in laga wado in dadka si weyn loogu baraarujiyo golaha baarlamaanka ayaa waxay tageen xaruntooda kadibna intay aqalka hoosta ka xidheen ayaa waxay qaadeen heesta qaranka waxaana laga daarayay markaas codbaahiyaasha inta badan digniinta bixiya iyadoo magaalada oo dhan laga maqlay heesta qaranka ee dalkaasi ama heesta calanka ee dalkaasi waxaana la sheegay in dadka la doonayo dhiigu ku kaco si markaasi loo arko dad badan oo soo baxaya dagaalka isla markaana ka qayb qaadanaya wilgooyin heeso iyo waliba barnaamijyo ayay wadaan qaar kamid ah wariyaasha dalkaasi oo iyagu baraha bulshada si weyn ugu hilba dagaalamaya waxayna doonayaan in aad loola dagaalamo dalka Russia ciidankiisana loo soo baxo oo la iska dhiciyo sida hadalka loo dhigay dhanka kalena iyada oo ay wali sii socoto cadaadiska xoogan ee la saarayo dawladda dalkaasi Russia ayaa la sheegay in shirkadii ugu dambeeyay ayaguna ka guura dalkaasi uu kamid yahay American Express oo iyaduna nooca markaasi deymaha bixisa ee loo yaqaan credit card company shirkadda ayaa sheegtay inay dhammaanayso dhammaan isla markaana ay joojinayso shaqooyinka ay ka waday gudaha dalkaasi Russia iyadoo ku biiraysa dalalka tirabeelka iyo shirkadaha waaweyn ee dunida ee tooteynaya dalka dhanka kale waxaa la sheegay in dawladda dalka Russia ay go'aansatay in xarun kasta oo nuclear ay gacanta ku dhigto iyadoo warkii ugu dambeeyay sabrashiya ka imaanaya sheegeen inay demisay qaybta internetka iyo telefoonada warshadaasi weyn si ay u maamusho isla markaana aysan u yeelin wax lagu yeeray galaangal ay ku yeelan karaan xubnaha qaarkood waxay sheegtay hay'adaasi inay dawladda dalkaasi ay inta badan hadeerta ay doonayso inay gacanta ku dhigto oo ay wada maamusho dalkaas iyo gabi ahaantiisba xarumaha nuclearka ee dhinaca rayidka laga markaas amaamulo magaalooyinka qaarkood ayaa la arkayay iyadoo oo la sheegay in meydku wadooyinka waran yahay sidoo kale waxaa la sheegay in magaalooyinka qaarkood ay dawladdu burbur aad u xoogan u geysatay magaalada loo yaqaan Irpin ee banaanka magaalada caasimadda galbeedkeeda xigta ayaa la sheegay inay kamid tahay magaalooyinka haawanaya ee ciidamada dalkaasi ay ku burburiyeen qalab military kadib markii dadka qaarkood wax iska caabin ay sameeyeen magaalada ayaa hadeerta waxay u eeg tahay ayaa la yiri mid aad iyo aad u sii xumaanaysa dhanka kale madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu sheegay inuu khadka telefoonka kula xidhay Vladimir Putin markana uu ka toogay inuu joojiyo xarumaha uu ku wada dagaalka dhinaca nuclearka sidoo xaaladdu aysan u sii darsan waxa uu sheegay in weydiistay Mr. Putin inuu joojiyo in laga wada hadlo badqabka xarumaha dhinaca nuclearka ee dalkaasi ciidamada Ruushku waa inay la shaqeeyaan dadka waxaan ka codsanayaa la shaqeeyaan dadka Ukrainiyaanka ee ayagu hubi kara xaaladda nuclearka kuwaasoo ah in aaggaas laga dhigo aag ka caagan in uu gantaal ku dhaco ama burburaan si uusan uga kacaamin radioactive iyo balaayoyin kale go'si horeysay ayaa waxa ay dawladda Russia ay beenisay in bomboonin iyo muuqaallo laga soo duubaya xarumo dhowra
oo markaas kamid tahay xarunta nuclearka ay horey u qabsadeen ciidamada dalkaasi inay gubanayso taasoo markii dambe been soo tari weeday warkaasi ayadoo ay ku tilmaantay dowladda dalkaasi inay tahay arrin been abuur dhanka kale xarunta Chernobyl iyo gorsi wareysay nuclearka ugu weyn ay qabsadeen dowladda dalka Russia ayaa sheegtay in xarumahaas ay qabsadeen dad ay ugu yeedhay afkaarihii naasiinta dad wata kuwaasoo ka dhiganaya inay doonayaan inay mar kale Ruushka ruqeeyaan oo amnigiisa ay geliyaan halis balse aysan taas yeelaynin isla markaana ismacay Russia ayaa markii ugu horeysay warbaahinta reer galbeedka iyo warwareyntooda waxay sheegeen in ay riday 600 oo gantaal tan iyo intii ay howlgalka ka bilowday dalkaasi 95 taasi kamid ah waxaa la sheegay inay ku dhaceen 95 ayaa gudaha dalkaasi ku dhacay Ukraine taasoo ka maqraati kacday inaysan Ukraine lahayn hanaan difaac oo gebi ahaanba gantaalaha ka qaban kara waxaa la sheegay in dhammaantood ay gantaalahaasi ku dhaceen bartilmaameedyo ay ugu talagashay dowladda dalka Russia inkastoo warbaahinta reer galbeedka iyo tan markaasi Al Jazeera labadaba ay sheegayaan in ay ku dhacday qaarkood ku dhaceen goobo rayidku ku badan yahay sida iskuulo isbitaallo iyo meelo kale aan loogu talagelin in military ahaan loo weeraro hadal isaguna uu eeg madaxweynaha horta dalka Ukraine waa nin aad ugu dagaalamaya warbaahinta wuxuu sameeyay qorshayaal dhinaca warbaahinta iyadoo la sheegay in tiimka u qaabilsan dhinaca warbaahinta ama xafiiskiisa warwareynta aysan habeen iyo maalin nasan isagu maadaama uusan nasan laftiisa wuxuu duubaa muuqaalo wacyigelin abaabul iyo sidoo kale codsiyo dunida ku socda narrativeyo ama sheekooyin oo abuuro iyo sidoo kale waxyaalo loo yaqaan dhiirigelin wilgooyin iyo waliba mararka qaarkood hadallo markii ugu horeysay qaarkood ay yaab leeyihiin inkastoo mar walba uu dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda dacayaadka iyo dalkiisa waxa iyo dhibaatooyinka uu xoog saari jiray markan wuxuu soo saaray fadl arinta fadwada ah waa markii ugu horeysay arinta diinta uu ka hadlo maadaama dadkaas dad ehlu kitaab ay yihiin waxa uu sheegay in maanta xalay ay warkii soo saaray oo ay dhamaanaysay maalinnimadii ay dhamaanaysay dabcan xadahayd ayuu sheegay maalinta xadda in dadka kristaanka ay aaminsan yihiin inay tahay maalinta dambi dhaafka oo qofku toddobaadkii wuxuu dambi uu galay laga dhaafo sidaa daraadeed wuxuu yidhi iyadoo ay maanta caawa isniin soo gelayso ayagu markaa isniin uma xisaabiyaan gabi ahaanba habeenkaas isniinta soo gelayso Sunday night baa loo yaqaanaa ama habeenka waxaa loo yaqaanaa axadda laakiin caalamka islaami habeenka isniinta inagu naqaano sidaa daraadeed wuxuu yidhi iyadoo caawa ay isniin tahay waxaan rabaa inaan sheego andhaho caawa ay axad tahay ayuu yidhi waa isniintii dabcan oo xalay ahay wuxuu yidhi caawa iyadoo ay axad tahay waxaan rabaa ayuu yidhi inaan sheego in ay tahay habeenka ugu dambeeya ee dambi dhaafka iyo cafiska waxa uu yiri marka la iscafiyo sidoo kalena la isku dambi dhaafo laakiin waxaan rabaa ayuu yiri inaan iraahdo boqolaalkii geeriyooday iyo kuwa kale ee dhibanayaasha ahi ma cafi doonaan iyo kumanaanka kun ee kale iyaguna qaxay wuxuu ma cafi doonaan ee dhibaatoonaya ayuu sheegay wuxuu yiri waxaan kale ogahay ayuu yiri ilaahay xitaa ma cafi doono buu yiri maanta iyo berri iyo welihi xataa wuxuu yiri waxa jiri doonta ayuu yiri in la maxkamadeeyo maalinta qiyaamaha la soo taago dadka dambiyadan iyo jarimooyinka waaweyn geysanaya waxa uu sheegay in ay jirto dambiyo waaweyn oo dalkiisa ka dhacay kuwaas oo sheegay inay yahaayeen kuwo aan kala sooc lahayn oo gantaalo aan kala sooc lahayn loo meeldayn lagu soo daadiyay dalkiisa sidaa daraadeedna ay ku dhaceen goobo dadku ku badan yahay iyo waliba in ay sameeyeen naafayn aad u weyn oo dalkiisa gaadhay sidaas ayuu sheegay xalay maqal iyo muuqaal barta Facebook ah uu ku soo duubay oo markaasi uu soo dhigay Mr. Fislinski dhanka kalena iyadoo warbaahinta reer galbeedku ay maalmihii ugu dambeysay oo dhan ay ka warrabayeen inay si weyn isku caabiyeen ama wax iska caabinayso biyaan ciidamada dalkaasi Ukraine haddana waxay sheegeen hadda in waqtigu hayo isla markaana ay u adkaysan laayihiin ciidamada la kala bedbedelayo ee marba kooxda soo galaysa cusub ee dalka Ruushka iyo sidoo kale raxanaha kala duwan ee hubka lagu garaacayo iyagoo ku tilmaamay in marba walba shixnad hub iyo artillery culus loo soo dirayo waxayna sheegeen magaalada Odessa magaalooyin ka mid hadeerta isha ku hayaan taasoo ka dhigan ay yiraahdeen in ay halis aad u weyn ku jirto dalkaasi waxay ku tilmaameen in qorshahaasi uu noqon karo qorshihii ugu ballaadhnaa ee meesha looga saari karo xiska caabinta iyagoo ka digay in dowladda dalkaasi sida u muuqato ciidamadeedu ay u muuqdaan kuwa sii niyad jabaya iyagoo sidoo kalena dadka shacabka ee goorsii horeysay dagaalka si weyn ugu biiray oo qaarkood ku jiraan qurba joog dalka u soo noqday si ay u daafacaan ay ka niyad jabayaan ayaa la yiri markaasi hugumka culus iyo hubka aadka u ballaaran ee lagu garaacayo qaybta saddexaad wada
qaybta labaad wararkii waxaa la dhinaca diblomaasiyadda caalamka dhan todobadii bishii aan dhaho Maarso waa 2022 waa markale iyo wararkii waxaa la dhinaca diblomaasiyadda caalamka qaybta labaad warfadhi media sidoo kale warfadhi media group qaybta warfadhi TV wararka kale iyo wararka ugu dambeeya wararka si dambeeyo ee ku maqli doontaan dowladda dalka Mareykanka ayaa qarka u saaran in ay ka mid noqoto dalalka mamnuucaya ayaa la shidaalka dalka Ruushka sidaas waxaa sheegay maamulka aqalka cad ee dalka Mareykanka oo sheegay in ay arintaasi ay ka xajoonayaan wadamada reer galbeedka arintan ayaa la sheegay in beddelkeedu ay noqon doonto qorshe balaaran oo dawladda dalka Mareykanka ay ka fikirto in aysan hadaba yaraanin shidaalka dalka Mareykanka iyadoo ay dawladdu sheegtay inay isticmaalayso hab aan qoysaska Mareykanka u dareemin inay kor ugu kacday shidaalku iyo hab loo ciqaabo dalka Russia ay ku tilmaameen in go'aamada dhinaca dagaalka ay sameynaya ay tahay kuwa aad u sidsanaya Mr. Zelensky ayaa isaguna dalbaday aag horle oo cusub oo isaguna laga furo dhinaca waxa uu ugu yeeray aag laga mamnuucayo diyaaradaha dagaalka dalkaasi Russia isla markaana ay aan loo ogolaanin in ciidamadaas ay sii wadaan dhanka kale waxay sheegeen in la sii adkeeyo oo dalbaday dalka reer galbeedka inay laba jibaaraan in wuxuu ugu yeeray cunaqabataynta dalkaasi la saarayo oo uu sheegay in gaar loo bartilmaameedsado waaxaha iyo warshadaha dhinaca hubka sameeya ee dalka Russia gabi ahaanba laga dhigo hubkooda iyo agabkooda kuwa duma oo la cadaadis aad xooggan la saaro arrintan ayaa imaanaysa iyadoo madaxweynahaasi mar walba uu fikradaha uu keenayo uu doonayo inuu ku adkeeyo dalalka wuxuu yiri hadii aad doonaysaan in aad badbaad wuxuu yiri marka horeysa bil aadan ayaanu nahay bil aadan markay dhimanayaan ama la arko bil aadan leeanaya waxa ka saaran ayuu yiri xil bil aadanka kale in ay badbaadiyaan annaga marka bil aadan la baabiiraya ayaanu nahay iyo sheegay isagoo ka dalbaday dalalka inay markaasi ay sameeyaan wuxuu ugu yeeray wixii karankooda ku badbaadi karaan dhanka kale magaalada caasimadda ee haawanaysa ee go'doonsan ee Kiev ayaa waxaa laga maqlayaa sawaxanka heesta qaranka ee dalkaasi National Anthem iyadoo la sheegay in laga wado in dadka si weyn loogu baraarujiyo golaha baarlamaanka ayaa waxay tageen xaruntooda kadibna intay aqalka hoosta ka xidheen ayaa waxay qaadeen heesta qaranka waxaana laga daarayay markaas codbaahiyaasha inta badan digniinta bixiya iyadoo magaalada oo dhan laga maqlay heesta qaranka ee dalkaasi ama heesta calanka ee dalkaasi waxaana la sheegay in dadka la doonayo dhiigu ku kaco si markaasi loo arko dad badan oo soo baxaya dagaalka isla markaana ka qayb qaadanaya gulgooyin heeso iyo waliba barnaamijyo ay wadaan qaar kamid ah wariyaasha dalkaasi oo iyagu baraha bulshada si weyn ugu hilba dagaalamaya waxayna doonayaan in aad loola dagaalamo dalka Russia ciidankiisana loo soo baxo oo la iska dhiciyo sida hadalka loo dhigay dhanka kalena iyadoo oo ay wali sii socoto cadaadiska xoogan ee la saarayo dawladda dalkaasi Russia ayaa la sheegay in shirkadii ugu dambeeyay ayaguna ka guura dalkaasi uu kamid yahay American Express oo iyaduna nooca markaasi deymaha bixisa ee loo yaqaan credit card company shirkadda ayaa sheegtay inay dhammaanayso dhammaan isla markaana ay joojinayso shaqooyinka ay ka waday gudaha dalkaasi Russia iyadoo ku biiraysa dalalka Tirabeelka iyo shirkadaha waaweyn ee dunida ee tooteynaya dalka dhanka kale waxaa la sheegay in dawladda dalka Russia ay go'aansatay in xarun kasta oo nuclear ay gacanta ku dhigto iyadoo warkii ugu dambeeyay sabrashiya ka imaanaya sheegeen inay demisay qaybta internetka iyo telefoonada shirkadaasi weyn si ay u maamusho isla markaana aysan u yeelin wax lagu yeeray galaan ku yeelan karaan xubnaha qaarkood waxay sheegtay hay'adaasi inay dawladda dalkaasi ay inta badan hadeerta ay doonayso inay gacanta ku dhigto oo ay wada maamusho dalkaas iyo gabi ahaantiisba xarumaha nuclearka ee dhinaca rayidka laga markaas amaamulo magaalooyinka qaarkood ayaa la arkayay iyadoo oo la sheegay in meydku wadooyinka waran yahay sidoo kale waxaa la sheegay in magaalooyinka qaarkood ay dawladdu burbur aad u xoogan u geysatay magaalada loo yaqaan Irpin ee banaanka magaalada caasimadda galbeedkeeda xigta ayaa la sheegay inay kamid tahay magaalooyinka haawanaya ee ciidamada dalkaasi ay ku burburiyeen qalab military kadib markii dadka qaarkood wax iska caabin ay sameeyeen magaalada ayaa hadeerta waxay u eeg tahay ayaa la yiri mid aad iyo aad u sii xumaanaysa dhanka kale madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu sheegay inuu khadka telefoonka kula xidhay Vladimir Putin markana uu ka toogay inuu joojiyo xarumaha uu ku wada dagaalka dhinaca nuclearka si aysan xaaladdu aysan u sii darsan waxa uu sheegay inuu weydiistay Mr. Putin inuu joojiyo in laga wada hadlo badqabka xarumaha dhinaca nuclearka ee dalkaasi ciidamada Ruushku waa inay la shaqeeyaan dadka waxaan ka codsanayaa la shaqeeyaan dadka Ukrainiyaanka ee ayagu hubi kara xaaladda nuclearka kuwaasoo ah in aagaas laga dhigo aag ka caagan in uu gantaal ku dhaco ama ay burburaan si uusan uga kacaamin radioactive iyo balaayoyin kale go'si horeysay ayaa waxa ay dawladda Russia ay beenisay in bomboonin iyo muuqaallo laga soo duubay xarumo dhowra
oo markaas ka mid ah xarunta nuclearka ay horey u qabsadeen ciidamada dalkaasi inay gubanayso taasoo markii dambe been soo tari weeday warkaasi ayadoo ay ku tilmaantay dowladda dalkaasi inay tahay arrin been abuur dhanka kale xarunta Chernobyl iyo goorsi wareysay nuclearka ugu weyn ay qabsadeen dowladda dalka Russia ayaa sheegtay in xarumahaas ay qabsadeen dad ay ugu yeedhay afkaarihii naasiinta dad wata kuwaasoo ka dhiganaya inay doonayaan inay mar kale Ruushka ruqeeyaan oo amnigiisa ay geliyaan halis balse aysan taas yeelaynin isla markaana ismacay Russia ayaa markii ugu horeysay warbaahinta reer galbeedka iyo warwareyntoodu waxay sheegeen in ay riday 600 oo gantaal tan iyo intii ay howlgalka ka bilowday dalkaasi 95% taasi kamid ah waxaa la sheegay inay ku dhaceen 95% ayaa gudaha dalkaasi ku dhacay Ukraine taasoo ka maqraati kacday inaysan Ukraine lahayn hanaan difaac oo gebi ahaanba gantaalaha ka qaban kara waxaa la sheegay in dhammaantood ay gantaalahaasi ku dhaceen bartilmaameedyo ay ugu talagashay dowladda dalka Russia inkastoo warbaahinta reer galbeedka iyo tan markaasi Al Jazeera labadaba ay sheegayaan in ay ku dhacday qaarkood ku dhaceen goobo rayidku ku badan yahay sida iskuulo isbitaallo iyo meelo kale aan loogu talagelin in military ahaan loo weeraro hadal isaguna uu eeg madaxweynaha horta dalka Ukraine waa nin aad ugu dagaalamaya warbaahinta wuxuu sameeyay qorshayaal dhinaca warbaahinta iyadoo la sheegay in tiimka u qaabilsan dhinaca warbaahinta ama xafiiska warwareynta aysan habeen iyo maalin nasan isagu maadaama uu sameeyay laftiisa wuxuu duubaa muuqaalo wacyigelin abaabul iyo sidoo kale codsiyo dunida ku socda narratifiyo ama sheekooyin oo abuuro iyo sidoo kale waxyaalo loo yaqaan dhiirigelin wilgooyin iyo waliba mararka qaarkood hadallo markii ugu horeysay qaarkood ay yaab leeyihiin inkastoo mar walba uu dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda dacayaadka iyo dalkiisa waxa iyo dhibaatooyinka uu xoog saari jiray markan wuxuu soo saaray fadl arinta fadwada ah waa markii ugu horeysay arinta diinta uu ka hadlo maadaama dadkaas ehlu kitaab ay yihiin waxa uu sheegay in maanta xalay ay warkii soo saaray oo ay dhamaanaysay maalinnimadii ay dhamaanaysay dabcan xadahay ayuu sheegay maalinta xadda in dadka kristaanka ay aaminsan yihiin inay tahay maalinta dambi dhaafka oo qofku toddobaadkii wuxuu dambi uu galay laga dhaafo sidaa daraadeed wuxuu yiri iyadoo ay maanta caawa isniin soo galayso ayagu markaa isniin uma xisaabiyaan gabi ahaanba habeenkaas isniinta soo galayso Sunday night baa loo yaqaanaa ama habeenka waxaa loo yaqaanaa axadda laakiin caalamka islaami habeenka isniinta inagu naqaano sidaa daraadeed wuxuu yiri iyadoo caawa ay isniin tahay waxaan rabaa in aan sheego andhaho caawa ay xad tahay ayuu dhaw waa isniintii dabcan oo xalay ahay wuxuu yiri caawa iyadoo ay xad tahay waxaan rabaa ayuu yiri in aan sheego in ay tahay habeenka ugu dambeeya ee dambi dhaafka iyo cafiska waxa uu yiri marka la iscafiyo sidoo kalena la isku dambi dhaafo laakiin waxaan rabaa ayuu yiri inaan iraahdo boqolaalkii geeriyooday iyo kuwa kale ee dhibanayaasha ahi ma cafi doonaan iyo kumanaanka kun ee kale iyaguna qaxay waxba ma cafi doonaan ee dhibaatoonaya ayuu sheegay wuxuu yiri waxaan kale ogahay ayuu yiri ilaahay xitaa ma cafi doono buu yiri maanta iyo berri iyo welihi xataa wuxuu yiri waxa jiri doonta ayuu yiri in la maxkamadeeyo maalinta qiyaamaha la soo taago dadka dambiyadan iyo jarimooyinka waaweyn geysanaya waxa uu sheegay in ay jirto dambiyo waaweyn oo dalkiisa ka dhacay kuwaas oo sheegay inay yahaayeen kuwo aan kala sooc lahayn oo gantaalo aan kala sooc lahayn loo meeldayn lagu soo daadiyay dalkiisa sidaa daraadeedna ay ku dhaceen goobo dadku ku badan yahay iyo waliba in ay sameeyeen naafayn aad u weyn oo dalkiisa gaadhay sidaas ayuu sheegay xalay maqal iyo muuqaal barta Facebook ah uu ku soo duubay oo markaasi uu soo dhigay Mr. Veselinski dhanka kalena iyadoo warbaahinta reer galbeedku ay maalmihii ugu dambeysay oo dhan ay ka warramayeen inay si weyn isku caabiyeen ama wax iska caabinayso biyaan ciidamada dalkaasi Ukraine haddana waxay sheegeen hadda in waqtigu hayo isla markaana ay u adkaysan leeyihiin ciidamada la kala bedbedelayo ee marba kooxdu soo galaysa cusub ee dalka Ruushka iyo sidoo kale raxanaha kala duwan ee hubka lagu garaacayo iyagoo ku tilmaamay in marba walba shixnad hub iyo artillery culus loo soo dirayo waxayna sheegeen magaalada Odessa magaalooyin ka mid hadeerto isha ku hayaan taasoo ka dhigan ay yiraahdeen in ay halis aad u weyn ku jirto dalkaasi waxay ku tilmaameen in qorshahaasi uu noqon karo qorshihii ugu ballaadhnaa ee meesha looga saari karo xiska caabinta iyagoo ka digay in dowladda dalkaasi sida u muuqato ciidamadeedu ay u muuqdaan kuwa sii niyad jabaya iyagoo sidoo kale dadka shacabka ee goorsii horeysay dagaalka si weyn ugu biiray oo qaarkood ku jiraan qurba joog dalka u soo noqday si ay u daafacaan ay ka niyad jabayaan ayaa la yiri markaasi hugumka culus iyo hubka aadka u ballaaran ee lagu garaacayo qaybta saddexaad wada
dawada qaybta labaad wararkii waxaa dhinaca diblomaasiyadda caalamka dhan oo todobadii bishii aan dhaho Maarso waa 2022 waa markale iyo wararkii waxaa dhinaca diblomaasiyadda caalamka qaybta labaad warfadhi media sidoo kale warfadhi media group qaybta warfadhi TV wararka kale iyo wararka ugu dambeeya wararka si dambeeyo ee ku maqli doontaan ee dawladda dalka Mareykanka ayaa qarka u saaran in ay ka mid noqoto dalalka mamnuucaya ayaa la shidaalka dalka Ruushka sidaas waxaa sheegay maamulka aqalka cad ee dalka Mareykanka oo sheegay in ay arintaasi ay ka xajoonayaan wadamada reer galbeedka arintan ayaa la sheegay in bedelkeedu ay noqon doonto qorshe ballaaran oo dawladda dalka Mareykanka ay ka fikirto in aysan hadaba yaraanin shidaalka dalka Mareykanka iyadoo ay dawladdu sheegtay inay isticmaalayso hab aan qoysaska Mareykanka u dareemin inay kor ugu kacday shidaalku iyo hab loo ciqaabo dalka Russia ay ku tilmaameen in go'aamada dhinaca dagaalka ay sameynaya ay tahay kuwa aad u sidsanaya Mr. Zelensky ayaa isaguna dalbaday aag horle oo cusub oo isaguna laga furo dhinaca waxa uu ugu yeeray aag laga mamnuucayo diyaaradaha dagaalka dalkaasi Russia isla markaana ay aan loo ogolaanin in ciidamadaas ay sii wadaan dhanka kale waxay sheegeen in la sii adkeeyo oo dalbaday dalka reer galbeedka inay laba jibaaraan in wuxuu ugu yeeray cunaqabataynta dalkaasi la saarayo oo uu sheegay in gaar loo bartilmaameedsado waxaa iyo warshadaha dhinaca hubka sameeya ee dalka Russia gabi ahaanba laga dhigo hubkooda iyo agabkooda kuwa duma oo la cadaadis aad xoogan la saaro arintan ayaa imaanaysa iyadoo madaxweynahaasi mar walba uu fikradaha uu keenayo uu doonayo inuu ku adkeeyo dalalka wuxuu yiri hadii aad doonaysaan in aad badbaad wuxuu yiri marka horeysa bil aadan ayaanu nahay bil aadan markay dhimanayaan ama la arko bil aadan leanaya waxa ka saaran ayuu yiri xil bil aadanka kale in ay badbaadiyaan annaga marka bil aadan la baabiinaya ayaanu nahay iyo sheegay isagoo ka dalbaday dalalka inay markaasi ay sameeyaan wuxuu ugu yeeray wixii karankooda ku badbaadi karaan dhanka kale magaalada caasimadda haawanaysa ee go'doonsan ee Kiev ayaa waxaa laga maqlayaa sawaxanka heesta qaranka ee dalkaasi National Anthem iyadoo la sheegay in laga wado in dadka si weyn loogu baraarujiyo golaha baarlamaanka ayaa waxay tageen xaruntooda kadibna intay aqalka hoosta ka xidheen ayaa waxay qaadeen heesta qaranka waxaana laga daarayay markaasi codbaahiyaasha inta badan digniinta bixiya iyadoo magaalada oo dhan laga maqlay heesta qaranka ee dalkaasi ama heesta calanka ee dalkaasi waxaana la sheegay in dadka la doonayo dhiig ku kaco si markaasi loo arko dad badan oo soo baxaya dagaalka isla markaana ka qayb qaadanaya wilgooyin heeso iyo waliba barnaamijyo ayay wadaan qaar kamid ah wariyaasha dalkaasi oo iyagu baraha bulshada si weyn ugu dhibba dagaalamaya waxayna doonayaan in aad loola dagaalamo dalka Russia ciidankiisana loo soo baxo oo la iska dhiciyo sida hadalka loo dhigay dhanka kalena iyadoo oo ay wali sii socoto cadaadiska xoogan ee la saarayo dawladda dalkaasi Russia ayaa la sheegay in shirkadii ugu dambeeyay ayaguna ka guura dalkaasi uu kamid yahay American Express oo iyaduna nooca markaasi deymaha bixisa ee loo yaqaan credit card company shirkadda ayaa sheegtay inay dhammaanayso dhammaan isla markaana ay joojinayso shaqooyinka ay ka waday gudaha dalkaasi Russia iyadoo ku biiraysa dalalka Tirabeelka iyo shirkadaha waaweyn ee dunida ee tooteynaya dalka dhanka kale waxaa la sheegay in dawladda dalka Russia ay go'aansatay in xarun kasta oo nuclear ay gacanta ku dhigto iyadoo warkii ugu dambeeyay sabrashiya ka imaanaya sheegeen inay demisay qaybta internetka iyo telefoonada warshadaasi weyn si ay u maamusho isla markaana aysan u yeelin wax lagu yeeray galaangal ay ku yeelan karaan xubnaha qaarkood waxay sheegtay hay'adaasi inay dawladda dalkaasi ay inta badan hadeerta ay doonayso inay gacanta ku dhigto oo ay wada maamusho dalkaas iyo gabi ahaantiisba xarumaha nuclearka ee dhinaca rayidka laga markaasi amaamulo magaalooyinka qaarkood ayaa la arkayay iyadoo oo la sheegay in meydku wadooyinka waran yahay sidoo kale waxaa la sheegay in magaalooyinka qaarkood ay dawladdu burbur aad u xoogan u geysatay magaalada loo yaqaan Irpin ee banaanka magaalada caasimadda galbeedkeeda xigta ayaa la sheegay inay kamid tahay magaalooyinka haawanaya ee ciidamada dalkaasi ay ku burburiyeen qalab military kadib markii dadka qaarkood wax iska caabin ay sameeyeen magaalada ayaa hadeerta waxay u eeg tahay ayaa la yiri mid aad iyo aad u sii xumaanaysa dhanka kale madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu sheegay inuu khadka telefoonka kula xidhay Vladimir Putin markana uu ka toogay inuu joojiyo xarumaha uu ku wada dagaalka dhinaca nuclearka si aysan xaaladdu aysan u sii darsan waxa uu sheegay inuu weydiistay Mr. Putin inuu joojiyo in laga wada hadlo badqabka xarumaha dhinaca nuclearka ee dalkaasi ciidamada Ruushku waa inay la shaqeeyaan dadka waxaan ka codsanayaa la shaqeeyaan dadka Ukrainiyaanka ee ayagu hubi kara xaaladda nuclearka kuwaasoo ah in aaggaas laga dhigo aag ka caagan in uu gantaal ku dhaco ama ay burburaan si uusan uga kacaamin radioactive iyo balaayoyin kale goorsi horeysay ayaa waxa ay dawladda Russia ay beenisay in bomboonin iyo muuqaallo laga soo duubaya xarumo dhowra
oo markaas ka mid ah xarunta nuclearka ay horey u qabsadeen ciidamada dalkaasi inay gubanayso taasoo markii dambe been soo tarweeday warkaasi ayadoo ay ku tilmaantay dowladda dalkaasi inay tahay arrin been abuur dhanka kale xarunta Chernobyl iyo goorsi wareysay nuclearka ugu weyn ay qabsadeen dowladda dalka Russia ayaa sheegtay in xarumahaas ay qabsadeen dad ay ugu yeedhay afkaarihii naasiinta dad wata kuwaasoo ka dhiganaya inay doonayaan inay mar kale Ruushka ruqeeyaan oo amnigiisa ay geliyaan halis balse aysan taas yeelayn isla markaana ismacay Russia ayaa markii ugu horeysay warbaahinta reer galbeedka iyo warwareyntoodu waxay sheegeen in ay riday 600 oo gantaal tan iyo intii ay howlgalka ka bilowday dalkaasi 95% taasi kamid ah waxaa la sheegay inay ku dhaceen 95% ayaa gudaha dalkaasi ku dhacay Ukraine taasoo ka maqraati kacday inaysan Ukraine lahayn hanaan difaac oo gebi ahaanba gantaalaha ka qaban kara waxaa la sheegay in dhammaantood ay gantaalahaasi ku dhaceen bartilmaameedyo ay ugu talagashay dowladda dalka Russia inkastoo warbaahinta reer galbeedka iyo tan markaasi Al Jazeera labadaba ay sheegayaan in ay ku dhacday qaarkood ku dhaceen goobo rayidku ku badan yahay sida iskuulo isbitaallo iyo meelo kale aan loogu talagelin in military ahaan loo weeraro hadal isaguna uu eeg madaxweynaha horta dalka Ukraine waa nin aad ugu dagaalamaya warbaahinta wuxuu sameeyay qorshayaal dhinaca warbaahinta iyadoo la sheegay in tiimka u qaabilsan dhinaca warbaahinta ama xafiiska warwareynta aysan habeen iyo maalin nasan isagu maadaama uusan nasan laftiisa wuxuu duubaa muuqaalo wacyigelin abaabul iyo sidoo kale codsiyo dunida ku socda narratifiyo ama sheekooyin oo abuuro iyo sidoo kale waxyaalo loo yaqaan dhiirigelin wilgooyin iyo waliba mararka qaarkood hadallo markii ugu horeysay qaarkood iyaab leeyihiin inkastoo mar walba uu dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda dacayaadka iyo dalkiisa waxa iyo dhibaatooyinka uu xoog saari jiray markan wuxuu soo saaray fadwo arrinta fadwada ah waa markii ugu horeysay arrinta diinta uu ka hadlo